sida la isugu xiray caafimaadka dadka iyo kan xoolaha iyo deegaanka iyo maxaan ku noolaha oo dhan yani noolaha oo dhan adduunku nool sida mucaamilada ka wada dhaxay si un bay u wada nool u wada macaan waxa ilaahay mahadiisa yani dadka Soomaalida duruufaas adag aan jirnay cudurrada qaarkood haddii ay dalkeena ay ka dilaaci lahaayeen dhibaato kale lagu sii kordhin noqoleed ilaahay naga hayay alxamdulilah waxaa kaloo intaa dheer hab nololeedkeena diinteena wax badan ayay idan naga saaciday cudurrada oo xayawaanaadka qaarkood laga qaado oo mujtamacyada qaarkood adduunka ku nool ay la macaamilaan ama ay cunaan eeyaha daanyarada maxaan ku rahdaa fiidmeerta waxyaabaha yani oo hadda aad looga dayriyo oo cudurrada qaarkood oo disasterka dhibka badan ay ka yimaadaan hadday tahay ebola iyo hadday tahay corona iyo hadday tahay cudurrada yani sida halaaga dadka u laayo ay ka yimaadaan ilaahay amarkiis anagu baahina naguma kalifin oo ilaaha xoolo badan na siiyey diinteennuna meelaha qaarkood waa naga hor istaagtay oo waa naga celisay oo ayadan waxay noo noqotay difaac kale inahaas marka la isku daro alxamdulillah meel fiicanaan joognaa bilow fiicanaan maraynaa inaan kordhino deriskeena waad arkayseen 700 oo cilmi baaris ah 700 oo cilmi baaris ah waa one health laakiin qaybihii kale cilmigana dalalkaasi waxay ka sameeyeen yani intaas iyo in ka sii badan annagana 63 ayaan one health ka maraynaa meelaha kalena waa laga sameeyay laakiin aad iyo aad uma badnaan isleeyahay laakiin baarisooda waxa muhiimka marka waxay tahay cilmi baaristaas muhiima cilmi baaristu waxay keenaysaa dadka mas'uuliyiinta ah hadday yihiin madaxda jaamacadda hadday tahay madaxda dowladda oo sare hadday tahay wasaaradda go'aan yani waxaa la yidhahdaa informed decisions go'aan yani ku salaysan ogaal iyo aqoon inay gaaraan ee aan la iska gaarin go'aanka aan la iska gaarin aan la dhihin saas maa la yidhahaa saasaan ka yeelaynaa aan la dhihin la diro marka hay-adaha cilmi baarista xarumaha cilmi baarista jaamacaduhu waxaan ku boorinayaa inay focuska aad iyo aad u saaraan overlappingna inaanay sameynin oo midi haddii hadda maalan jaamacadda abraar ay one health ay ku socotay oo ay wax badan ka qabatay in wixii macluumaad iyo wixii dadaala iyo wixii lala qaban karo dhan ayadaas areas ugula qabto kuwa kalena area kale ay galaan oo ayagana ay research ay excellencega meel kale inay ka raadiyaan hal meel inaanan muxuu ahay aanan laga wada raadinna waa soo jeedinaya bahda waxbarashada marka waa ugu balyeynaya dadaalka iyo wanaagga aan gasheen one health program sidaa loo sheegay aad iyo aad ayuu muhiim u yahay nolosha dadka jiilka jira iyo kuwa soo socda iyo waxyaabaha yani laysu gudbinaya ama hadda in jirka laga saaro xataa ay dhib badan tahay in maxaan ku rahaa marka hore laga taxadiro oo ka hortago daaweyntu ka fiican yahaydii xigmadii ahayd la isticmaalo jaamacadda muxuu abraar waxaan leeyahay hambalyo jaamacadaha ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku yaalaan iyo dalka daafiisa oo dhan waxaan leeyahay sidoo kale hambalyo shaqo fiican oo wanaagsan ayaad ummadda u haysaan ilaahayna waa idinka ajarsiinaa ummaddana waa idiin abaalgulaysa dalkan dhismihiisa dib u soo qabashadiisa mowqifka oo caalamka ku lahaa ee saxda ahay inuu soo istaago aqoonay ku xiran tahay aqoontuna yaanay naga noqonin keliya midda muxuu ahaay materialka oo laba lagu daray waa 3 arday hadda maalan barnaamijkan muhiimadiisa ugu weyn waa wacyigelin soo maaha ninkan miskiinka ah ee caloosha xoolaha webiga qarkiisa la fadhiyay ee ku dhaqayay inuu wax ku dheelayo ma aaminsana inuu xaleynayo ma qabo webigaana wasaqoobi kara ma qabo laakiin wuxuu u baahan yahay in loo sheego la tusiyo oo la yiraahdo webiga sidaa waa maxay waxaad bedelaysaa qofkaasi sida yani softwareka maskaxdiisa ku jira yaad bedelaysaa software cusub oo biyahaas webiga oo meeshaas asiga uu ka wasaqaynayahay ee socdaahay kumanaanka kilomitir ay sii marayaan dadka jooga oo dhan iyo beeraha lagu waraabinayo iyo xoolaha cabaya iyo wax inay iyo kalluunka ku nool iyo dhammaan oo la cunayo inay sumoobayaan ama ay problem ku dhacaya in loo sheego dadka in la baro bakaarta si ka wanaagsan oo loo kaydsado dadku waa inay wax kaydsadaan si oo banaanka hadday dhayaan bahalay ee afdheere iyo balaayo waxbaa gelayso waa u jeeda afdheeraha laakiin kan kale oo bakaarta ku galayo uma jeedo ishiisu ma qabato marka kan u jeedo ka cararaya laakiin mid ka sii khatar badan oo maxaan ku raadaayo yuu ku dhacaya
marka dadka in oo si loo kaydsado raashinka galleyda masagada digirta oo ka wanaagsan in dhulka lagu aaso oo bakteeriyada noocaasa ay ka dhalatahay waa inay jirtaa awareness-ka marka wax weyn waa awareness-ka wax walba oo maanta haysto hadday tahay siyaasadda hadday tahay amniga hadday tahay caafimaadka hadda naga hadlay waxa ugu weyn ee naga haysto waa awareness wacyigeena oo aan muxuu ahay meeshii la rabay aan joogin oo sidii la rabay aan ahayn yaa naga haysta qofku markuu wacyigiisu toosay qofku waxbuu ku dheelayaa isagoo ogeyn inuu ku dheelayo marka in loo sheegay u baahan tahay waxaana ay sidan si ka fiican oo loo sameeyo inay jirto mar kale waa mahadsantihiin jaamacadda abraarna waa u hambalyeynaya iyo dhammaan jaamacadaha soomaaliyeed baada waxbarashada dadaalkiina ilaaha la jiray allaha la sii jirosoodiyaan leeyahay shirkeenniina waa noo furan yahay aad iyo aad u mahadsantihiin kusoo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada hindiga ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan hadday ahaan lahayd musalsalada hindiga turkida ama ameerikaanka oo af soomaali lagugu turjumay waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid iyo weliba tiifiyada soomaalida dhammaantood kasoo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeenna caawin 24 saac 7 maalin ah degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga mobilkaaga iyo weliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo Boqoble Store-ka kuna qor qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay